بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا بالأكاديمي بكورسديني Personal Development Skills. ما أنت وحنو بلعب دورنا موديول كيني كواد قيبتي سدحاد أما بارت 3 نبو إيجينا عوان كوه الريو Meeting Life Challenges لكولانكا عرقلادها نرشا hore waxaynu casharkii hore u soo aragnay change isbedelka casharkan laftiisa isbedelka wali kama maqana. Change isn't always something you work toward. Some changes happen whether you want them or not. isbedelku badanaa ma aha wax aad adigu u shaqayso si aad u gaadho. mararka qaarkood uu dhacaa isbedelku ama aad rabtid ama aanad rabin. You might have to move to a different city. waxaa laga yaabaa inaad doonto inaad magaalo kale u guurto and go to a new school. inaad dugsi kale u guurto ama aad dugsi kale u bedelataa dooni kartaa. For example, tusaale ahaan. Then you face the challenge of settling in. haddaba waxaad waajahaysaa carqaladda xasiloonida ama degitaanka Making new friends and building a different life. asxaab cusub iyo jaar cusub inaad samaysato waa inaad nolol different oo taadii hore ka duwanna aad dib u dhisto ayaad waajahaysaa. oo halkii hore deganayd dad baa istaqaaneen jiiraan aad ahayneed sidaa darteed jiiraankaagii hore kulama soo guurayaan jiiraan cusub baad yeelanaysaa. marba haddii aad meeshii hore kasoo guurtayna deriskaaga cusub waa inaad barato. waa challenge weeyaan. dugsi haddaad kasoo bedelatay asxaabtaadii iyo saaxiibadaadii oo dhan kuma soo raacayaan. asxaab cusub ayaad ku yeelanaysaa dugsigeena. haddana isbedel kalaad samaysay. waa challenge baad la kulmaysaa marka asxaabtaad la kulmayso aad baranayso. waa challenge weeyaan. maalmaha ugu horeeya wax laga yaabaa inaad qalooto oo aad cid la hadli weydo. Even changes that you initiate yourself can be challenging. xataa adigu isbedelada aad qabatinteed naftaada ku samayso ayaa noqon kara kuwa carqalada. For example, haddii aad beryaha noqoto qof aggressive oo muxuu ahay diblow oo kadeed badan oo reerkii qaribayo kale, for example, dee waa isbedel weeyaan. carqalad buu kuu keeni karaa oo wuxuu kuu keeni karaa inaad familigiis nacdaan. For example, haddii aad soolane iska dhigto oo aad bilowdo inaad takoor isu samayso oo dadka iska dhex saarto ama inaad ummadda ka dhex baxdo oo aad is ururiso oo aanad cidna la hadlin cidna muxuu ahay waxba la wadaagin aad guriga soo gasho baxdo muxuu ahay wax soo dhigato timaado oo aad bilowdo inaad dadka xidhiidhadoodii jartana challenge cusub oo isbedel cusub baad la kulantay haddana oo dadkii baad ka dhex baxday. Challenges are part of life. isbedeladu waa qayb ka mid ah nolosha and everyone has to deal with them. qof walbana waa inuu muxuu ahay xiriir la yeesho isbedelka oo uu yaqaano. Some people, however, face more serious challenges than others. dadka qaarkood waxay waajahaan challenges bay waajahaan ama carqalado dadka kale aanay la qabin bay waajahaan. The challenges presented by disabilities sida naafarnimada oo kale bal dadka naafoobay ee qarax wax ku noqday oo kale bal ka soo qaad miyaanay change ahayn. isbedel baa waa challenge weeyaan waliba. isbedel carqalad leh weeyaan oo dhib weyn leh. Discrimination takoorka bal ka war dadka la takooro iyaguna waxay dareemaan carqalad bay dareemaan. waxay dareemayaan muxuu ahay in ummadii laga dhex saaray oo dhib bay dareemayaan. Poverty sometimes seem impossible to overcome. mararka qaarkood markaad faqri la kulanto waxa laga yaabaa inaad carqalad badan muxuu ahay kala kulanta laga yaabaa. Yet there are many examples of people who conquer them. haddaba waxaa jira dad example oo tusaale noo noqon kara oo waxyaabahaas oo dhan iyagu ka gudbay oo aanay xidhin naafarnimadu aanay xidhin takoorku ama aanu faqrigu xidhin. dadyo badan baa taariikhaha marka laga sheekeeyo waxyaabahaas oo dhan iyaga oo carqaladahaas oo dhan la kulmay haddana isbedel sameeyey. ciwaanka inoogu xiga wuxuu noqonayaa developing a positive attitude. yeelashada fikir wax ku ool ama fikir togan. A positive attitude can make the difference between giving up
and achieving success. fikirka wax ku oolka ah ama fikirka togani wuxuu sameyn karaa isbedel buu sameyn karaa u dhaxeeya in aad isdhiibto iyo inaad gaadho guushaada. inta u dhaxaysa ayaad la kulmi doontaa. for example haddii aad fikir wax ku ool la timaado dee marnaba isdhiibi maysid waad wax isku dayaysaa inaad guulaysato dadaal badan oo samayn doontaa si aad u guulaysato. count your blessings, tiri wanaagyadaada, not your misfortunes. ha tirin xumaanahaaga. focusing on the positive gives a brighter outlook. haddii aad diiradda saarto mar walba dhinaca wanaagsan waxaad u muuqan doontaa ama aad yeelan doontaa muuqaal qurux badan oo sax ayaad yeelan doontaa. work with what you have. waxaad hayso ku shaqeey. make the most of your skills and talents. badanaa muhiimadda saaro xirfadahaaga iyo hibooyinkaaga mar walba soo horeysii. welcome change. qaabil oo soo dhaweey isbedelka. don't be afraid to try something new. ha ka cabsan wax cusub inaad bilowdo. for example carqalado fara badan oo la kulmi kartaa oo haddaad new businesses tiraahdo aasaas muxuu ahay ganacsi cusub waxaa laga yaabaa inay waalidkaa xataa carqalad kugu noqon karaan oo ku yidhahdaan iska daa xilliga ma faa'iido male waxaan muxuu ahay wax qiimo badan maaha maxaa shaqada noocaas u aasaasi weydood waxaan ku falasaa inuu kugu yidhahdaa laga yaabaa. laakiin waa inaad u joojinado marba haddii aad doonayso isbeddel inaad samayso oo aad ku adkaysato fikradaada wanaagsan ee aad aaminsantahay. find the right opportunity. raadi fursadda ku habboon. if you keep looking you will find someone who will give you a chance. haddii aad baadidoonka sii badiso oo aad kordhiso waxaad heli doontaa qof chance-ka ku siiya oo isagu ku dhegeysta ku garab istaaga. don't fear failure. ha ka cabsan guuldarrada. failure is a natural part of success. guuldarradu waxay qayb muhiima ka tahay guusha oo qof aan guuldarraysanin maba guulaystaba. waa inaad soo guuldarraysato dabeetana aad guulaysato markaasay guushu dhadhan yeelanaysaa. guusha gola kafuulka ah ee degdeg loo helaa badanaa dhadhan badan ma samayso. it helps you to learn and become a winner. guuldarradu waxay kaa caawin doontaa in aad wax cusub barato aad noqoto mid guulaysta. aynu u gudubno sources of support. meelaha aad ka heli karto support ama kaalmo aad ka heli karto ama caawimo. waayo cid aad ka heli karto caawimo ama muxuu ahaayey kaalmo. no one needs to feel alone. ma jiro ruux doonaya oo jecel inuu keli ahaado. as you look forward the future. sidaad mustaqbalkaaga rajeynayso realize that others are willing to help you meet your challenges in life. waa inaad aqoonsanaato inay dadka qaarkood jecel yihiin inay wax kaa caawiyaan noloshaada ka mid ah. family. dadka ku caawin kara waxaa ka mid ah family, friends, religious leaders, school counselors and teachers are all possible sources of support. dad iyagu halkaa laynoogu sheegay oo dhanba waa dadka aan caawinta ka heli karayno sida qoyskaaga, asxaabtaada, hogaamiyayaal diimeedyada, school counselorska iyo teacherska, macallimiinta, all possible sources of support. iyo xubno kasta oo suurtagal ah oo aynu caawimo ama kaalmo ka heli karno. hadday noqoto kaalmo lacageed, hadday noqoto kaalmo xagga talada, hadday noqoto kaalmo isgarabtaag, waxaasoo dhan xubnahaas ayaynu ka heli karnaa iyo kuwo kale asxaabteena iyo qoysaskeenaba. don't be afraid to ask for help. ha ka cabsanin inaad dadka weydiisato caawimo haddii aad u baahan tahay. remember too that others need your help. be ready to listen and encourage friends and family. xasuusnow inay dadka qaarkood doonayaan adiga laftaada inaad caawiso. diyaar u ahow inaad dhegeysato oo aad dhiirigeliso asxaabta iyo qoyskaagaba oo ha noqon adiga laftaadu qof aan dadka caawin ha noqon marna. building lifelong skills. dhisitaanka xirfadaha waara. think about your future. ka fikir mustaqbalkaaga.
What information and skills do you need to face life's challenges and reach your potential? xirfado noocee ah ama warbixino noocee ah ayaad u baahan tahay inaad hesho si aad u waajahdo carqaladda noloshaada oo aad uga dhabayso kartidaada. By learning how to manage time, money, marka aad barato sida loo maareeyo waqtiga iyo lacagta, and you will make better decisions, iyo sida loo samaysto go'aamo wanaagsan, and solve problems more effectively, iyo sida loo xaliyo dhibaatooyinka si wanaagsan oo hufnaan ku sugan tahay. Waxa aad heli doontaa lifelong skills, ama waxaad ku guuleysan doontaa xirfadaha waara ee noloshaada. Improved interpersonal skills will help you better communicate with your family. haddii aad xirfadaha shakhsiyadaada horumariso, waxaad si wanaagsan ula dhaqmi doontaa oo aad ula xiriiri doontaa qoyskaaga, friends and co-workers, asxaabtaada iyo dadka aad shaqada wadaagtaan ayaad si wanaagsan ula shaqayn doontaa. xirfadaha markaa lifelong la yiraahdo ama xirfadaha waara ee muddo aad ku shaqayn karto qaar badan ka mid ah hadday noqoto xirfado technique u baahan ama farsamo u baahan, iyo hadday noqoto xirfado u baahan fikirba, adigu ma ku xiran tahay habkaad xirfadahaaga dibadda u keenayso oo aad karti iyo kalsooni dibadda ugu soo saarayso. shakhsiyadaadaana ku xiran tahay sidaad xirfadaada dibadda u keeni lahayd. module-keeni saddexaadna inahaas aynu kusoo gabagabayn doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ku xidhnaada Bila Academy. dhammaantiin waanu idin jecelahay, waanad mahadsantihiin.